السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلة يقبنايه عن هالك تكسر قد بين شري وعفلا يو إن سفي عن وجه دونتان قيبتان سيدا دركتان با ورودا محمد أحمد مركزي أفيانكا بالشيخال قبل كاسي بنادر عاصمة مقدشو يا عاوة لنا عايق فريدا وعن كوريسلنا إن رودا وحنشعله وحيبضل إن كوريسلنا ما دام مقالة نيروبي بوقشة يكون شوكتي horaantii bishan dabcan soo gaartay arrimo fara badan baan ka wareysan doonaa haddii noqoto Soomaaliya iyo Kenya labadaba marka hore ku soo dhawow muuqaalkeena aan halkan dabcan ku qabanayno وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaalkay waa mahadsantahay ma sha Allah marka hore waxaan mahad celinaa Allah subhanahu wa ta'ala marka labaadna waxaan u mahad celinayaa TV-ga midnimo oo fursadan qaaliga ah isiye ma sha Allah tabaaraka Allah waa mahadsantahay waan ku soo dhaweynayaa وأنا كفرحسنا فرصة لنا هاد بلغ فرحسنا هاي ما شاء الله سيدو ونكسن طبعا بركياد هلكن تبي شغلة دياد وجودتي وبلابتي ولما يستي إلا أنت أي سوق قبل يسوي وحوي طلبة كل سعودي ما شاء الله نلها قارن إنه طبعا وين كود الشقيل النبي وقرتي بليتا طبعا إنه سوق الدين شقلي بركياد كرونك سودتي جو مكيات بل يسوي بالله لا حوي هذا واد midnimo TV ما شاء الله aad ka soo muuqatay ما شاء الله walaalkay horta garoonka waxaan ka soo degay kastoon jaamacad ugu soo galay diyaaradda oo iska taqaanid Soomaalida iyo Afrikaanka balantooda inay iska dhib badan tahay 7 saac meesha ka soo duuleen horta waxaan imaaday 4 saac ay bara imaaday garoonka Jomo Kenyatta waa dareemi kartaa inta aan fadhiyay maxay ay sheeg waqti badan laakiin hadafka aan lahaa markaas ka weynaa Kenya walaal markaan ka soo degay ma sha Allah alxamdulillah kulli dhalinyaro aad u diyaarsan ay soo dhaweeyeen oo gudoomiyaha kamidii jaaliyada ee Nairobi ma sha Allah walaal wax dhibaato aan ku arka garoonka message jirin ha alxamdulillah علي مخوين يتيم كساني سياسيين نما ها فنانين نما لودا ساسا لو سو دوينا marka kabtoomo marka saasa ma sha Allah aniga hadafkay waxa inaan ka qayb galo shirka midnimada beeshii qaal ee weynaa ee lagu qabanayo magaalada Nairobi caasimadiisa oo caalamka daafaca caalamka la iskaga kala yimid runtii afayaan maadaama uu hadalka midnimada beeshii qaal ee magaalada Muqdisho ururka ay soo dirsaday saasay wakiil ahaan ugu imaaday marka alxamdulillah ma sha Allah kulli tuu dhacayna isla socono wada joogin ما شاء الله الحمد لله shirarka ka dambeeyay cilmiga diinka aan la galnay kiimad celinta xildhibaanada iyo wallahi ma soo koobi karo hadaan dhaw falanqeynaa waqti dheer ay qaadanay ma sha Allah waxa laba barnaamij aad u weyn ma sha Allah oo maadaama xaflad la dhigo dad culimada lagu yaqaan feedback soo baxay la qiimeeyay kadibna waxa la culimada soo qabtanto si loo meero wixii meesha yaray ka dhacay muusiga iyo wixii waliba waxa barnaamijkaas kale waxa ku fiiraa sidii waxa workshop kale loo sameeyay 3 maalin shirka waxyaalaha cilada barnaamijka leeyahay saacadaha lagu soo koobo iyo dad Afrika iyo Aasiya Asia ka kale ilaa Mareykan hala wada hadlaan leeyahay iyo dadkii magaalada aad ugu ooman midnimada marka fiirsaad xadaarada la gaaray laakiin alxamdulillah alxamdulillah ma sha Allah maalin waxa ahayd in la siiyo Nairobi baba waxa weeye uu hadlo oo yiraahdo anigu hebel oo reer hebela oo reer qansaxa waxaan degnaa halkaas waxaan ka soconaa halka midnimada saas oo fiirin maalin siyaasiyiinta la siiyo maalin dhalinyarada la siiyo maalin hooyooyinka kale la siiyo laakiin anyway wax kasta waxa ku dhaceen sidii loo rabay muhiimadu waxay sawir inuu baxo sawirkiina uu baxo ma sha Allah waa la gudbi shirarka kale ka tashan doonaa insha Allah duulahay aad waxa loo hadalhayo magalasa waxa xafladaha ay reeraha kale ay sameeyeen ilaa hadda waxa way xafladii sheekhaal waxa way cid soo qabato la leeyahay taas aan ku sheeg waxa keeni karo in xadaarada iyo hamiga loo hay waayo dadkan beeshan waa iska taqaanaa waxa waa dad culimo ahaayeen oo qof meel uu diinta ka fidinayay qof kastana uu deegaankaas u la marka waa markii uu horeysay aan dhihi karaa dhalinyarada Nairobi aad ugu mahad celinaa 100% markasta TV-ga midnimo oo fursadan isiinaan ku soo bandhiga maanta hadafka iyo fikrada igu jiro marka shirkan wuxuu uga duwanaa wuxuu ahaa shir loo hay hami
ها همي ولا سوق قضبة كسو وذا بحي الحمد لله إن على كل حال سيد أفعنا ودعيها واي فضل على كسو قيب قالي قل مذو وكلا كسو قيب قشي فض كلا الكوكالة وزير دولة إن قال جوجا إلا إذا يكون فرق البيت مركو حلو فرحوها الحمد لله ورجينا أنا قستيجا كلنا ديسمبر إن شاء الله سد حديد ما توين كذا مقالة مقدشة إن شاء الله هنا إذا كعسوا مدونه دولة وهذا فيدباك قاعدين تقول نقولنا حفلة قاب كسعتي وحلا إلا أفر كنت ضبكون يا حوي كسوق قيب الشيء هم بيشا ده والله هرت ما يا شركة لبا قيبو كلها قيبو حوها قيب لو عسومي ده بيشا ويسكو أركيسي أو دواء وجدكي صبحي دعاء يا جوب جوجه هذي الله إيو هبينكي وها شركة يعني إلا مقرب كسلاد مقرب تيم كده ما نقدر يرضوها لكن بقول كيف سجاشن يشن بشيء عين فنانين عض فنانين ما تمضوا دواء وجد فنانين تتمريكن كده المراكرة ده يحوك على إن هالدور كفنانين تمجال مقدشو كجري مركضت كأد وحي ودنين عين ما دام دل مرحلة ودنين صول على بتاعها بيش قد ده يحي ودنينز مركوال وضع مذهبين كسوحن إيه كرا شخص باشا إنه كبر ما ورت موجين سومالينا قيبت ده صاحبي رو مركض مسكسو قلمو لكن بقول كيف سجاشن شنها وبناء هاد لكن سؤال وي محل يري إن وحتى لو تدخل عوانو مقرنسا إيش أنا على اللوذ ها وحلي سؤال ما قاوني بيجي سؤال إلى ذا والله أرنتاسي هرتا دان هو كشكينا تاريخ ذبيشة وقت بدن قاعدني كمان جارينو فرصة كلا إنا هلو أرجينا يا إن وحكوا عدينا ساتاسي ما دام أنا علماء أنا تقف علماء مركوي هاي أنا والأوجي هتاس تاريخ هذا هيستوري مرك أنا هذا نلوب حين أو كلام هذا إيشك إن هذا دفق عمر والي قنا سما إن أحمد فق عمره كلوب مرك لوب حين معناه هو بحوالي قنا أو قد شامبو تاسع تصالك حاجة نبعر بعير وهذا أرك تقوليه أنت مرك ضد كمان إيه كرا عواني أهاين لكن في ذيك الدين أنت سوق جارن كور وحيال بدنا إسكجر هذا ضيعة مرك الحمد لله ساس ضد كودين لكن إما لو نقول ضد كنا علماء مجرى قفونا قف شقال ودقن. ده سؤال كلا يقول ولا قبضة سؤال كلا دمان وهذا أنت هتيجي تبقى أن خجتته والوطن كي وطن كده تشوفته جوطن كي مركز حوي أن سفر بدته حاسون كرتها فرق هي وضحية مدام ده حوي أد تعيش هنا دول لابطه حجرة وحوي وربحنا هذه النجار شيء سهرة. ما شاء الله سؤال أضفي عواي وأنا مهم. inkastoo dadalkan aan u dhalanin hadana waa magaalo maalmihii aan joogo runtii waxaan sidii kara wax ku dareemay relaxi waa magaalo aad xor tahay meesha harta amari karto saacad artana socon karto in weeyaan oo wax aad ka cabsanaysa male laakiin dalkeena markii la fiiriyo in 5 daqiiqo intaan oo kale hadda warbixin hada bixin oo kale anoo cabsana maxaa dhici doona isdhahay aan warbixinta bixin jiray laakiin hadda anyway ilaa waag inta ku baraynta waa fadhi karaa 8 saac aan guriga tagaa habeenimo magaalada Muqdisho runtii inaan 12 saac أصاقل قف مركوس يبحى إن هالإسعافيين لده وحكست على كانوا مقتاي وهي مجالة إسكافوضة إن كستو عاصمة دنا ما شاء الله يتهاي هذا نوح لا إله إلا قبوج كل تنطلع لستي تذكر لستي وكلامها أنا جاني مركو حارجينا إن شاء الله بإذن الله كريم دلكينا نبض إنه كدعضو هذا وجعلنا لكن فرق بينه ودحين نيروبي مجالة مقدشو وهي مهمة وأمن الأمن والإيمان نبي إبراهيم هذا إيمانكو أمنك كسهر مري مركتاس وادريمي كرتا qofku wuxuu awood u leeyahay inuu wuxuu raba sameeyo wuxuu raba barto meeshuu raba tagi karo saacad uu raba TV guro kala kulmi karo laakiin xamar oo kale waxa laga yaabaa xataa TV ada warbixin siinaysa inuu ku soo waco oo dhadaan ma iman karo meeshaas saaxiibo isoo wacda warbixin iga ribtid sir laxi qof saaxiibka oo la maduubi kartid YouTube ama de waxa waa uu saacad meel kasta wax dhici karo marka ha dhigta ku taagan maxaa dhici doono ilmiya iskuulka jiro telefoon duu soo dhaco bismillaahir rahmaanir rahiim maxaa lagu sheegi doona marka waa dareemi kartaa kulay dhibaato iska jirta laakiin insha Allah waa amni dar labadaas kaliya ma sha Allah hadii amni jiraan de horumarkina waa imaanayaan waxa afar badan oo keen hadda ay haysato aysan samhayn haysan wax badan oo anaga aan haysanana keen meesad ku dar xisaabteedana qaloo meel ku fiican da balansiga laakiin ammaanka muhiima ma sha Allah waaga Roode Maxamed waxa filayaa qaybii dambe soo gaaray had akhyaartii aad ka timid fariin aad halkan ugu gudbinaysaa adigoo waxa way si leefan ugu tagi doona laakiin fariinta ay ka soo hormarto
khiyaarta horta waa labo qolona waa Soomaaliya oo ka imid oo magaalada Muqdisho caasimada ah taas caasimadeedu waxaan leeyahay kulleed waqtigeeda iska suganeena xaalada iska jir dalku xaalada dagaal iskaga jira marka Ilaahay dalkeena noo qaboojiyaan leeyahay ta kale waxaan leeyahay dhalinyarada midnimada beesha qaal way u jeedaan dacaawina xataa TV midnimo leeyahay ugu casuumay taasna waxay tusaale u tahay horumarka aan gaarayna aan sameynayno inayna casuumaan TV waxaan dhihi lahaa insha Allah bidmillaahi kariim waxaan rajeynayaa sa ii soo dhaweysan si lamida inaan idin soo dhaweyn doono hadii Ilaahay yiraahdo insha Allah walaalkeen waan salaamayaa Haarun sorry iga raal noqo aadan u salaamayo qofka juhdiga bixinayo ku duba qofka ugu juhdiga badan wariyaha wareysigu isa ka dhib badan marka aadan ku salaama adiga dhamaan idaacada kulligiin xaajiga fursad isii dhamaantiin waxaan idin leeyahay ma sha Allah waan soo dhaweynaa anagula aad baan kugu hambaleynaynaa sida wanaagsan caawa nagala qayb qaadatay barnaamijkan waan jecelahay markaas waxa weeye in si fiican waxa weeye hawada inoogu galo aad baan kugu hambaleynaynaa waqtiga waxa weeye jaalsan insha Allah idaacada ma santaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wahagaag intaasi ayaynu muuqaalkan kusoo gabagabeynaa aanu dabcan wareysinay afayeenka beesha sheekhaal gaar ahaan gobolka Banaadir سميرة عاصمة مقدش طبعا محمد أحمد وعاوة مركزي طبعا برامجك غلاقة بيلسي حي نعم صحيح والله أكوهم بلينا وأنا فرح سنة ما شاء الله هذا أو فرح سنة فرصدان ما شاء الله من ميهر مر إن شاء الله تعالى خير بدل ما أنتي رجعنا قولي برنامج كان وحاول هلا دريمو يا إن شاء الله حولي ساس لايك تيشيرت أنا وحكو ما قشوا أنا وح ما كابن ده فائدة إيه تاني إن شاء الله